sheekadan maanta idii hayaa runtii waa sheeko aad u qiimo badan leh. waa sheeko aan ka helay markii aan maqlay oo aan daawaday. kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal, soo dhawaada. haddii aad kanalkan ku cusub tahay waxaan ku xasuusinayaa inaad subscribe tiraho oo aad nagu soo biirto. aad baad mahadsan tahay. waxay ahaayeen reer lacag badan leh oo markaasi tujaar ah. aabihii ayaa wuxuu damcay si wiilkiisu u soo arko sida ay u nool yihiin dadka fuqarada ah uu kadib markaas u ogaado hantida badan ay leeyihiin. aabihii ayaa wiilkiisa ku yiri aabayna mari aan soo aragna beeraleyda fuqarada ah ee magaalada dhinaceeda degan. way israaceen aabihii iyo wiilkii si bal markaasi ay u soo arkaan xaaladda dadka fuqarada ah ee markaasi beeraleyda ee magaalada dhinaceeda degan. waxay ku soo qaateen muddo halkaas oo ay markaasi bal eegayeen noloshoodii noocay tahay. aabbaha ujeedada ugu weyn ee ka leeyahay hawshan waxay tahay si wiilkiisu u ogaado siday u nool yihiin dadka fuqarada ah. kadib markii ay soo dhammaysteen safarkii ay ugu baxeen si ay u soo arkaan dadka fuqarada ah xaaladda ay ku nool yihiin, ayaa aabbihii weydiiyey oo ku yidhi aabbo ka waran ma soo aragtay xaaladda dadka fuqarada ah? wuxuu ku yidhi haa aabbo waan soo arkay. aabbihii oo doonaya markaasi inuu xog dheeraad ah wiilkiisa ka helay ayuu ku yidhi aabbo ka waran maxaa kugula yaab badnaa intii aynu markaasi ku guda jirnay safarkeena? wuxuu ku yidhi aabbo waxaa igula yaab badnaa waxaan arkay in inagu hal ay leenahay laakiin iyagu 4 ay leeyihiin. aabbo waxaan arkay in inagu ay leenahay dhul yar oo kooban laakiin iyagu dhul aan geed lahayn ay leeyihiin. aabbo waxaan soo arkay ayuu yidhi in inagu isticmaalno layrar yar oo markaasi gurigeena oo iftiimiya laakiin iyaga waxaa guryahooda iyo deegaankooda iftiimiya xidigo. aabbo waxaan ogaaday cuntadan cunno in aynu soo iibsano inagu halka iyaguna ay markaasi beertaan oo la soo baxaan. aabbo waxaan ogaaday in inagu aynu leenahay meel yar oo pool ah oo markaasi biyo nagu jiraan halka iyaguna markaasi ag maro webi aan dhammaan lahayn. aabbo inagu waxaan lacag badan ku bixinaa ilaalada ee ilaalinaysa hantideena markaasi guriga dhex taala laakiin iyagu macal albaabo ma leh. wuxuu markaasi aabbihii uu la fajacay wiilkiisa meeshuu wax ka qiimeynayo. wiilkii ayaa ugu sii daray wuxuu yidhi aabbo waad ku mahadsan tahay sidaad ii tustay sidaan inagu fuqaro u nahay. aabbihii ujeedkiisa waxay ahayd inuu markaasi wiilkan soo tuso in bal markaasi u nool yihiin xaalka dadka fuqarada ah. laakiin wiilku markii dambe wuxuu yidhi aabbo inaga ayaa fuqaro ah. aad ayaad u mahadsan tahay haddaad sheekadan ka heshay. fadlan taabo subscribe oo mar labaad ayaan ku xasuusinayaa. intay ku kulmi doono barnaamij la mid ah waxaan idinku dhaafayaa